waxaa maanta gobolka Salal gaar ahaan xaruntiisa degmada Saylac lagaga dhawaaqay urur siyaasadeed cusub. Urur siyaasadeedkaasi oo lagu wado inuu noqdo mid ka mid ah urur siyaasadeedyada ugu ballaaran, waxaana urur siyaasadeedkan cusub ee maanta lagaga dhawaaqay degmada Saylac iska kaashanaya siyaasiyiinta gobolada galbeedka ugu tunka weyn leh, isla markaasina uu ugu horeeyo gudoomiyaha urur siyaasadeedkan cusub mudane Maxamed Muuse Buuc oo ku magac dheer Buuni, isla markaasina ahaan jiray barasaabkii hore gobolka Salal, horena uga mid ahaan jiray siyaasiyiinta ugu tunka weyn leh ee gobolkan Salal, kana mid ahaan jiray xisbiga Kulmiye. goobtii lagaga dhawaaqay urur siyaasadeedkan cusub ayaa waxa gudoomiyaha barbar taagnaa mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Saylac, qaar ka mid ah waxgaradka bulshada ku dhaqan degmada Saylac, odayaal, dhalinyaro, waxaana hadalladooda ka mid ah sida tan. maanta ay taariikhdu tahay 26 bishii shanaad 2022 annagoo ku sugan xarunta gobolka Salal ee Saylac, waxaan rabnaa oon halkan kulankayagu yahay maanta in aanu ka shaacino sidii ay dadweynaha goboladan galbeedku u furan lahaayeen urur siyaasadeed cusub inaan kaga dhawaaqno halkan. urur siyaasadeedkaasoo muddaba tashigiisa iyo qabanqaabadiisaba ku jirnay, iyadoo isku dubaridkiisii wax yar noo dhimayay hadeed. insha Allah waxaan rabnaa inaan maalmaha soo socda aan xafladii loogu wanqalay urur siyaasadeedka aan ku qabanno xarunta gobolka Salal ee Saylac. ururkaasoo ay sida nidaamka ururadu ay yihiin mid ay matali doonaan dhammaan beelaha Soomaaliland oo dhan. run ahaantii waxaan aaminsanahay in ay tahay waqtigii ku habboonayd si loola jaan qaado isbedelada dimuqraadiyadeed iyo Soomaaliland la wada leeyahay si ay uga muuqato. baryahan dambe waad aragtiin iska qabsiga iyo xisbiyadii hore iyo xisbul xaakimkii ayaa socda. waxaan isleeyahay wuxuu dawo ka noqon doonaa urur siyaasadeedka ay furanayaan beelaha darafyadu in ay ka muuqdaan siyaasadda, waana waqtigii beelaha darafyadu ay hoggaanka qaban lahaayeen baan leenahay. waxaad arkaysiin saddexdii xisbiyii hore beel keliya ahaayeen, durtaba iska qabsi baa jira. war iyagana waxaan leenahay waa milageegiiye hanaga dhooqaynina baasha, hanaga dhooqaynina, waa milageegii haddeed waa laynii talin doonaa wax la wada leeyahay noqonto. sidaasayna Soomaaliland lagu wada aamini karaa bay ka dhigan tahay. insha Allah urur siyaasadeedka oo magaciisa iyo nidaamkiisa iyo xubnihiisa dib u shaacin doona xaflad weyn oo loogu wanqalayna lagu qaban doono degmada Saylac ee gobolka Salal toddobaadka soo socda haddii Ilaahay yiraahdo. sida walaalkay noo sheegay Buuni, arrinta maanta aan u fadhino ama hadalkayga u daaran yahay in ku qabanay degmada Saylac waxa weeye sida uu noo sheegay urur siyaasadeedka ay ka mid tahay maanta Soomaaliland oo dhan ay samaysatay. waxaan leenahay kaayaga uu u siman yahay dadku 5 beelood 6 beelood ee Soomaaliland maanta beel ka maqan ma jiro, laakiin hawshiisii iyo sida gudoomiyuhu noo sheegay diyaarintiisii iyo nidaamintiisii dhawaaqidiisii maalintaas ayaan sharaxaad badan ka bixin doonaa haddii Ilaahayna gaarsiiyo. waxaan leenahay beelaha Soomaaliland darafyada maanta waa xilliga uu sheegay gudoomiyuhu waxa weeyaan maanta annaga leh hanaga dhooqaynina baasha oo macnaha taa bariga ban walba tagaysay aqoonsi iyo wanaagba waxa lagu helayaa baasha dadka ka wada dhaxaysa sida gudoomiyuhu sheegay aan ku raacsanahay. wassalaamu calaykum. urur siyaasadeedkan maanta lagaga dhawaaqay degmada Saylac ayaa noqonaya urur siyaasadeedkii ugu horeeyay ee lagaga dhawaaqo gobolka Salal gaar ahaan xaruntiisa degmada Saylac. waa Cali Axmed Yariye, Cali Gadrool, wararka degmada Saylac.